وحراتا حمري إلهي كحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaasheeda qiimaha ee qaalo meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada shabakada wararka Sila 24. waxaan idin haynaa faala gaar ah ku saabsan amniga magaalada Muqdisho yaa sugi kara iyo xaaladda Muqdisho xilligan waa sidee dagaalka u dhaxeeya al-shabaab iyo xukuumaddu halkeeba maraya dowladaha ku sugan magaalada Muqdisho ciidamadooda ay ku kala sugan yihiin midowga Afrika ka mid yahay magaalada Muqdisho oo kaliya miya xasiilin kari waayeen xaaladoodu waa sidee waxaynu ognahay ilaa 1991 markii dowladii dictatorka ahayd Maxamed Siyaad Barre ay burburtay in marba marxalad ay soo martay magaalada Muqdisho iyo gobolada koonfurta ee Soomaaliya laakiin arinta ugu weyn iyo halka dhibaatadu ay tahay Muqdisho iyo xaaladeedu waa sidee haddaynu si u eegno magaalada Muqdisho oo ciidamo Mareykan ku sugan yihiin African Union ay ku sugan yihiin ciidamo Turkiya ay ku sugan yihiin dowladda Soomaaliya dhammaan ciidamada caalamka ku soo tababaratay ay ku sugan yihiin iyo maleeshiyad kale waa maxay sababta loo sugi kari laayahay amnigeeda ilaa maanta loogu talaabsan kari laayahay si kale haddaynu u dhigno ma dadka deegaanka ayaan doonaynin amniga ma dowladda Soomaaliya ayaan doonaynin inay magaalada ka dhigto amni mise quwadaha shisheeye ee ku sugan ee doonaya amniga inay ka qayb qaataan ayaan iyaga laftooduba doonaynin inay amniga magaalada Muqdisho sugaan oo waa mashruuc iska socda oo kolba cid qaadanayso magaalada Muqdisho marka si loo hadlayo waxa diga beela Soomaaliyeed una badan haddii dadka deegaanku ay qaataan mas'uuliyadda oo la saaro magaalada loo kala qaybiyo qaybo qabiil kastaana deegaankiisa ilaaliyo waxa suuragal ah in amniga magaalada Muqdisho 12 bilood oo kaliya lagu sifeeyo cid kasta oo khatar ku haysa laakiin taasi ma dhicin oo cid kasta eedu iska riixaysa dowladda Soomaaliyeed quwadaha shisheeye ee jooga ayay ku riixaysaa eedda oo waxay leedahay ciidamo ay nala jooga amniga nala sugaya midowga Afrika oo iyaguna xilligan Soomaaliya ku sugan xafiisyadooda iyo goobahooda iyo goobaha dowladda un bay ilaaliyaan laakiin mas'uuliyadda shacabka ma qaadi karaan oo maalin kasta waxa dhaca qaraxyo dad shicib ay ku dhamaanayaan oo ku li'aanayaan haddaba waa sidee sida ugu fudud ee loo sugi karo amniga magaalada Muqdisho xaafadaha Muqdisho waxa loo kala dedegan yahay beelo iyo qabaayil inkastoo Soomaaliya oo dhammaan maanta ku sugan tahay laakiin qabaayil baa ciidan ka haysta qabaayil baan ugu awood badan deegaan kastaana uu og yahay deegaanka uu degan yahay cidda taala iyo cidda ganacsi ku haysataba ganacsatadu waxay haysataa iyaduna dhaqaale ku filan oo amniga qayb kaga qaadan karto laakiin maadaama aanay doonaynin cidina inay mas'uuliyadda qaadato dowladda Soomaaliya waxay keentay shaxdii ay kula shaqayn lahayd dowladaha shisheeye ee jooga dowladaha shisheeyana heshiis bay soo galeen heshiiskoodaasuna markuu dhamaado iyaga hawlu taala maaha haddaba dadka dhimanaya ayay ka dhimanayaan ma Amazon bay ka dhimanayaan ma Turkiga ka dhimanayaan ma dowladaha Carbeed bay ka dhimanayaan waa dad Soomaaliyeed oo u baahan xal siyaasi ah ay tahay mas'uuliyaddeeda in la qaado dadka khubarada ku takhasusay wadamada dagaalada sokeeye ka dhacaan ilaa meesha ay sugaan dadka deegaanku oo fahmaya deegaankii cidda ku soo biirtay cidda ku soo korodhay qof kasta guriga uu degan yahay cidda la degan iyo cidda u timi waa xalka kaliya ee nabad lagaga dhalin karo magaalada Muqdisho حديقتي أفريكا حلقي قرنقا هي الحمري حرير قلبي حرم